بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم رمضان كريم ولا ليال دمان أمة المسلمين تاميلا جوكتانبا إلهي بشا بركيسن خير كذا هاي نسيو هنا إنو قدام بدافو إنو قلنا دمانتين آن اسكو عفنو halkan waxa aan caawa u soo fadhiistay arrinta mujaahid jaamac maxamuud aadan doolaal oo arrintiisu dhowr jeer oo aan arrimo kale hadday siyaasad tahay iyo haddii ay arrimo kale tahay baan sirig ka hadal waxa la i weydiiyey oo aad moodaa in la isoo hordhigayo mar walba mujaahid doolaal arrinkiisii ka war waxaan rabaa caawa inaan xog wixii aan ka hayo idinka siiyo halka wax marayaan mujaahid doolaal waa kii xabsi 2 sannadood lagu xukumay iyadoo lagu soo eedeeyay arrimo qaran dumisa laakiin taas markii aan goobjoog u ahayn waxaanu noo muuqatay in aan cadaymo ku filan iyo arrin uu ciqaabta intaa le ku mutaysan karo aanay jirin sidaa darteed waxaanu ka howlgallay cid kasta oo ka damqanaysa arrinkaas waxay ka howlgashay in doolaal xorriyadiisii iyo karaamadiisii iyo sharaftiisii uu dib u helo waqti ha qaadato way jiitantay marba meel bay maraysay waxay iminka xaaladiisu maraysaa in sidii sharciga loo waafajin lahaa xukunkii maxkamaddii ku dhacay looga noqon lahaa isaguna uu isagoo karaamadiisii sharaftiisii darajadiisii wata uu u soo bixi lahaa ayaa arrintu ku soo ururtay madaxweynaha iyo xukuumaddu si wanaagsan bay ka yeeleen wasiiradii xukuumadda ka tirsanaa ee mediationka u ahaa arrinta xidhiidhkeeda ka shaqaynayana si fiican bay yeeleen cid maxaa la yidhaahdaa jeclayd inuu halkaa ku sii jiro oo ilaa maanta jecel inuu halkaa kusii jiraana ma jirto procedurkii iyo nidaamkii sharciga ahaa ee uu kaga soo bixi lahaa uunbaa yara jiitamay cid kasta oo xaggeeda cagajid ka yimi waan ku maxaa la yidhaahdaa canaanayna ama waanu kaga xunnahay in ay jiitanto laakiin procedurkii nidaamkii inay marto oo uu xorriyadiisa ku helo sidii sharafta lahayd iyo karaamada lahayd ee uu isagoo nadiifa uga soo bixi lahaa isagoo darajadiisii iyo shakhsiyadiisii wata ayuunbaa laga howlgalay waxa ay iminka ku dhex wareegaalaysanaysaa sharcigii iyo nidaamkii madaxweynuhuna uu raalli kaga yahay in uu sidaa ku soo daayo oo marka ay halkaa kasoo dhammaato uu xorriyadiisa siiyo waraaqahaasi ama maxkamaddii xukuntay dib ha uga soo noqdaan ama xeerlaalinta ha ahaato procedureka ay dhexdooda ku yara habsaantay uunbaa dib inoo dhigtay xogta dhabta ah iyo halkay marayso waanu dee ka xumaanaa intaa marba waanu ka hadalnaa waanu leenahay yaanu dee maalin kusii jirin oo faraska usha waxa loogu dhuftaa inuu kasii badiyo taa dee mar walba waanu islahayn cidda bal warqadda gacanta ku haysa ha ku dhaqsato laakiin uun markaan xogtii raadinay ilaa maanta ilaa shalayto waxaa noo soo baxday in aanay arrintaasi waraaqaha meelaha dhexe sharciga maxkamadaha iyo xeerlaynta dhexdooda ku yara habsaamay mooyaane madaxweyne unu mowqifkiisii uu ku soo daynayey ku taagan yahay kagana raalli yahay in marka waraaqahaasi soo dhammaadaan maxaa la yidhahda uu soo daayo marka waxaan leeyahay aniga oo ka mid ah oo aniga laftaydu isu dardaaraya oo ka mid a dadka aadka u kacsanaa mar walba lahaa maalintuu kusii jiraba maalin aanu raalli ka nahay oo cadhan nagu sii biiraysun bay ka mid tahay waxaan leeyahay walaalayaal meel wanaagsan baa wax marayaan aanu samirno mujaahidka laftiisu wuxuu raalli ku yaho magaraysa aanu dhib ku qabin oo kaga soo cabanin in sharciga la waafajiyo oo isagoo karaamadiisii iyo sharaftiisii wata uu halkaa ka soo baxo insha allah dhinaca dad badan oo aad muddo arrinta inay u reereynayaan ama maxaa la yidhahdaa dee reero colaada dhex yaalan laga dhigayana waxaan leeyahay walaalayaal reero colaada dhex taallo oo ishaya ma jiraan dadku waa walaalo laakiin inta xukunka gacanta ku haysa canaanteeda dhinac walba ha noqoto way leedahay haddii lagu cambaaraynayo iyo haddii lagu canaananayaba reeraha dhexdooda fidmada la dhigayo iyadana walaalayaal ha laga waantoobo oo dadka reer somaliland waa dad walaal ah aynu isu tudhno baan leeyahay intaa kadib boqor buur madow
saaxiibkay aad iyo aad baan boqor cismaan usoo salaamayaa boqor arrintaa meel wanaagsan baanu soo gaarsiinay meel fiican bay maraysaa rag fara badan baa ka shaqeeyey waad ku mahadsan tahay inaad ka damqato laakiin halkii ugu wanaagsanayd bay maraysaa soona gaadhay wax dhibahoo iminka yaallaana ma jiro adna intii aad ka hadashay waad ku mahadsan tahay